halkaad warkaasina kala socdaan daawadayaal waa istuudiyaha Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London. saacadii ugu dambeeyay warbaahinta caalamka ayaa isha waxa ay ku haysay waqooyiga Korea iyo hogaamiyaha mayalka adag ee dhalinyarada ee wadankaasi oo tallaabo markaasi aad loola yaabay dhigay oo sameeyay. haddaba hogaamiyaha Koreada waqooyi Kim Jong Un wiilka dhalinyarada ay kibirka badan ayaa la sheegay in uu ugu baaqay saraakiisha ugu sareysa militariga wadankaasi inuu hadiyado qaali ah siinayo marka laga qayb galayo xuska sanad guuradii xabad joojinta dagaalkii Korea oo 67 sano ay ka soo wareegtay. haddaba Kim Jong Un ayaa wuxuu booqday qabuuraha askartii uga dhimatay Koreada waqooyi dagaalkii Korea 67 sano ka hor. saraakiishii ugu sareysa militariga wadankaas ayaa lagu casuumay munaasabada. waxaa loo sheegay in hadiyado qaali ah uu bixinayo Kim Jong Un. sarkaal kasta waxa uu soo diyaar garoobay hadiyadu waxa ay noqon doonto iyo sida uu markaasi dareenkiisa isu bedeli doono marka la siiyo hadiyad qaali ah oo ka turjumaysa waxqabadkiisa. saraakiishu waxay ahaayeen kuwa la soo xulay oo loogu talagalay in marka ay munaasabadaasi yimaadaan si marka loo guddoonsiiyo hadiyada. markii goobta la isugu yimid ayaa mid walba oo kamid ah saraakiishaasi waxa uu Kim Jong Un guddoonsiiyay box xiran oo aanay garanayn marka waxa ku jira. laakiin markii loo wada qaybiyay saraakiisha boxyadii ayaa mar qura loo sheegay inay boxyada furaan. waxay ku arkeen baastoolado oo markaa ku jira boxyada. kadibna wuxuu dalbaday Kim Jong Un in ay isaga saf la galaan oo sawiro iska qaadaan. sawiradaasi oo lagu muujinayo hadiyadaha uu isagu u arko inay yihiin kuwo qaali ah oo la siiyay saraakiisha, iyadoo mid walba uu bistoolada isku sawiray isagoo markaa sawirkana kala qayb galay. haddaba sawirkaasi ayay warbaahintu siyaabo kala duwan u rogeen oo ay u macneeyeen. qaar badan waxay ku tilmaameen in macnaheedu yahay cid allaale iyo cidii isku dayda oo saraakiishiisa ka tirsan inay dawladda wax u dhinto ama afgembi iyagoo la shaqeynaya dawladda shisheeye in markaa la toogan doono oo bistoolada uu ku dili doono. halka kuwa kalena ay u fasireen in macna ahaan ay jawaab u tahay Korea inay mar walba dagaal joogto u tahay waa Koreada waqooyi cid kasto ku soo xadgudubtana ay iska celin doonto. 위대한 장군님께서 수여하신 권총을 신념과 의지의 기둥으로 삼고 사회주의 수호전의 최전방을 억척같이 지켜섰던 선군시대 곤지배 성원들처럼 경애하는 최고 용도자 동지께서 안겨주신 백두산 기념 권총을 마지막 피 한 방울이 남을 때까지 심장에 품어안고 그 어떤 천지지변이 닥쳐와도 이 세상 끝까지 원수님만을 waa tahay daawadayaal warbixinta ka hadlaysay hadiyadii yaabka lahayd ee Kim Jong Un ayaan ku soo gabagabeynayaa warka. anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinayay. inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Plasm Cream waa daawo dabiici ah oo loogu talagalay kor xanuunka, kala gooyshada, jilba xanuunka, dhabar xanuunka, luga xanuunka, muruqa xanuunka iyo neerba xanuunka, gaar ahaan dadka qaba cudurrada ay Soomaalidu u taqaano tufta ama riixda, afka qalaadna lagu yiraahdo arthritis. daawada Earlich Balsam waxay ka kooban tahay laba qaybood. qayb ah cream oo la isticmaalo habeenkii iyo qayb ah gel oo la isticmaalo maalintii. waxay u fiican tahay xanuunada ku dhaca xubnaha jirka, kala gooysyada, jilbaha, cagaha, lafta dheer ee dhabarka, garbaha iyo surka, gaar ahaan dadka qaba xanuunada arthritis iyo rheumatism-ka
waxay ka baabi'isaa oo ka qaaddaa xanuunka bararka iyo adkaanshaha. haddaba wixii faahfaahin ah waxaad kala xidhiiri kartaa My Natural Healing. hagaag haddaba aan ku tilmaamo xaruntan My Natural Healing waxay ku taallaa kasoo horjeedka maqaayadda Brothers ee xaafadda Tottenham ee magaalada London. haddaba wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada iyo adreeska shaashada kaaga muuqda.